السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. جمعة وناكسن أما جمعة مبارك الله يدين كدقو دادك إنت النول وعالم كجوكتا خاصة رير بوساسة إنتي كالنول ماشي بوساسة هاي runtii waxaa ka dhacday foolxumo waxyaabihii aan ka digaynay baa loo tegey. waxaa dhacday ceeb wax lagu sheekeeya aan la garanayn. waxaa dhacday jeelkii magaalada oo weynaa oo la sheegay inay ku jireen dhowr boqol oo qof, 381 maxbuus baa ku jiray baa layidhi. xogtaan helayo 381. war kalena wuxuu igu yiri 400 bay ku dhowaayeen. marka warkaas 381 baa specific ah oo lambar go'an sheegay. 381 kaas qof oo ku jiray xabsiga waxaa ku qabsaday xabsiga oo ugu galay niman al-shabaab ah oo buuraha ka yimi. argagixisadii oo buuraha ka soo degay. jeelku magaalada oo ka baxsan yahay, buuraha lagaga soo degay. meelo soke ayaa waxaa la dhigay jidgooyo si aan jeelka loo weerarin oo aan weerar ugu soo bixin inta ay ka danaysanayaan. waxaa la sheegayaa inay qabsadeen jeelka kulligiis. askarta joogtay xoogaa bay ahaayeen dhowr qof. dhowrkii qof waxay dileen waa laayeen. ciidamo gurmadah oo PIS-ta la yiri oo ahaa oo gurmad ku yimina ayagana waa laayeen baa layiri. so far 9 qof baa ku dhimatay intaan maqlay. 8 waa maqlay, 9na waa maqlay. 9 qof baa meydkoodii la keenay isbitaalka. waa dhici kartaa wax inay weli buuraha yaallaan. saacaddu markay 11 fiidnimo ahayd iyo xoogaa bay meesha soo galeen. jeelka waa qabsadeen, gudahay u galeen. wax alla wixii ku jiray maxaabiis waa la tageen. wax alla wixii ku jiray maxaabiis. 2 riwaayadood baa soo gaaray. riwaayado waxay leedahay 4 nin baa loogu yimi, mid oday yahay oo meesha ku indhabeelay. qaarna waxay leeyihiin waxaa looga tegay meesha 7 qof. waxaan dhageystay warka uu sheegay ma garanaysaa ninka wariyaha, ninka ciidamada u hadlayay oo yiri maxaabiistii oo dhan meeshay ku jiraan. warkaasi waa been, wax ka jira male. ciidamadu meeshii oo haawanaysa bay tageen oo aan cidina ku harin. ma sheegno annagu waxaanaan ogeyn. wax dhabta ah oo xaqiiqada ah keliyaan sheegnaa. meesha waxaa ka dhacday ceeb. runtii waana idiin sheegayaa sababtay ceebta u tahay. waa la isgaadaayo, waa la islaayaayo, wax waa la sameeyaa, laakiin ceebta dhacday baan idiin sheegayaa. waana midda ugu xanuunka badan. horta meesha ciidan ma joogin. dhowr nin oo qayisha oo qaad cunayaa joogay. waana foolxuma arrintaas. jeel baad dhowr boqol oo qof ku haysaa. 200 oo ka mid ihi argagixisadii la qabtay bay ahaayeen oo suuj iyo meelaha laga soo qabtay. markaan leeyahay argagixisada ha haysanine markaa qabataan laaya. haddii maxkamad la saaro, maxkamadda lagu helo, dembigu ku caddaado, madaxaa laga toogto. waxba yaan la sugin. maxaa u haynaysaa? marka koowaad, marka 200 oo ka mid ah waxay diyaar u ahaayeenba inay dagaalka hore ka galaan oo hubbay u qaybiyeen oo ciidankooday ku biireen. wixii oo dhan bay la baxeen, bannaankay ula baxeen, magaaladay kala baxeen. meel sokay ciidamo yaryar dhigeen oo jidgooyo ah oo ciidankii soo gurmaday dhabarkayba kaga dhufteen iyo geesaha bay kala dhiceen xabad. marka masalada ceebta ah oo meesha ka dhacday waxa weeye ciidamada dowladda ee qaybta ayaa ilaalin jiray jeelka. habeenkiiba waxaa loo diri jiray 3 gaari oo tiknika iyo 50 ciidan ah. waxaa la sheegayaa ninkii qaybta haystay inuu fasax iska aaday.
oo meelo kale jiro Nairobi iyo waxba laga sheegay waxa kaloo la sheegayaa xalay iyo habeen hore midna inaan la dirin ciidamadii meesha waardiyeyn jiray aan loo dirin waxaa ka soo baxaya fal qorshaysan buu ahaa fal qorshaysan oo inside-ka laga abaabulay buu ahaa nimankaasi xalay iyo habeen hore looma dirin ciidan meeshii waardiyeeya iyo tiknikadii baabuurtahay oo ilaalin jirtay looma dirin jeelkuna waa meel magaalada ka baxsan oo aan gurmad lagu soo gaarayn waa yimaadeen xoogaagii meesha joogay laayeen 9 qof oo la keenay oo meydka ah 7 waa askartii waa la hubaa 2 haray baa waxa la isku hayaa ma iyagiiba ka dhinteen mise maxaabiistii ka dhinteen nimankii soo gurmaday dhexdaa loo galay dhexdaa laga celiyey oo lagu laayay lagula diray ciidamadana waxay ku dhinteen wixii meesha gudaha ku jiray mooye yacni ciidamadii soo gurmaday bay noqon karaan dadku marka waxay sheegayaan oo ay warramayaan oo ka warramayaan xogtanna soo gaaraysa ay tahay inaan ciidamadii meesha ilaalin jiray xalay iyo habeen hore midna loo dirin nimankiina 2 habeen oo keliya ay baaqdeen ciidamadu meesha aadi jiray bay yimaadeen see u ahaan kartaa wax iska dhacay oo accident u dhacay suurtagal maaha waa xog u baahan baaritaan in lagu sameeyo waxaa halkan ka caddaanaysa ciidamada Puntland oo 3 bilood aan mushahar la siin inay gaajada u geyn karto in lacag inta la siiyo ay ficilkaas oo kale ku dhaqmaan dadku markay fakhriyaan oo gaajoodaan meeshana ay nacaan desperate-na ay noqdaan waxa meesha ka jirana ay noqdaan waxaysan ku qanci karin waxyaabahaas iyo ka sii xun baa imaanaya waxyaabahaas iyo ka daran baa imaanaya dalkan waxaa la rabaa dalkan in argagixiso laga xoreeyo waa meelihii nabadda ahaa oo nabadda loo joogi lahaa oo nabadda loo raadsan lahaa baa argagixiso ag degan tahay intay iska soo lugayso oo jeelka qabsato oo ka danaysato ciidamadii meesha joogay layso oo la baxdo wax alla wixii meesha ku jira ay la baxeen oo dareersadeen oo bannaanka ula baxeen bay waxay dhaheen waxayagii annaga dadka yagii ahaana noo soo raaca oo annaga ciddii ficil annaga ah u xirnayd ina keena soo baxa oo la layn lahaa cid alla ciddii argagixiso u xirnayd ina keena buurtaynu aadaynaa waa raaceen dadkii kale waxay yidhahdeen orda magaaladiina aada qaar badan oo ka midii magaaladii bay galeen waxaa laga yaabaa inay magaalada qaar ka qabqabtaan maxaabiistii laakiin maxaabiistii meeshii oo haawanaysaa loo yimi 7 qof war baa sheegaya war kalena 4 qof buu sheegaya 4 qof oo nin indhala oo weliba la ii sheegay reerkiisa uu ku jiro oo meesha ku indhabeelay ay meesha uga tageen baa waxaa mushkilo ah oo cadiim ah ciidamada waa la diiday in la tababaro tababar caalamiya la siiyo magaran si fiican loo tababaro oo dhaqaale ay helaan oo intan ay noqdaan ciidan qaran oo magaranaysaa ay sidaan dhaamaan waa diideen waa la diiday maxaa yeelay dan baan ku jirin shakhsiya dan shakhsiya meeshii waa dukaan waxaan hayaa warar iyo akhbaar ay ii soo direen dad reer Puntland oo aad dowladda ula dhacsanaa sidaan annaguna ula dhacsanayn markii hore kadib Puntland aaday 3 nin baan arkay ninkii afraadna hadduu message ii soo duubay waa dheer tahay oo idinma wada dhegaysiin karo 12 daqiiqo weeye mar baan message-yadaas keliya intaan isku soo dedejiyo baan soo daynayaa oo waxaan ka dhigayaa video dhan oo idinku aad dhegaysataan dadka reer Puntland akhbaarta aan ka helayniyo xogta ay noo soo dirayaan baanu baahin doonaa insha allahu tacaala meeshii waxaa ka jira runtii burbur baa ka jira nasiib daraa ka jirta waxaa ka jira in laga qawlaysanayo laga danaysanayo waxaa ka jira dadki inay gaajo beerka dhulka ku hayaan in lacaga layska urursanayo layska guranayo canshuur in dadki laga qaadayo hal shay aan dadkii loogu qabanayn 3 bilood mushaar lama siin maalin dhoweyd baa inta tviyada lasoo istaagay ciidamadii budgetkii baa kor u kacay lacagtaan u kordhinaynaa February baan u bilaabaynaa mushaharkii oo double looga dhigay magaranaysaa baa la yiri maxaa ku xigtay 2 bilood iyo 3 bilood bay kala leeyihiin dadka qaarkood mushaar lama qaadan qaarna waxay ugu yiraahdaan 2 bilood mushaar ma aanan qaadan qaarna waxay ugu yiraahdaan 3 bilood mushaar ma aanan qaadan this is what it is lacag uu kordhiyay iska daayay
adeer taayadii baanu ka weynay wararkaasay soo qorayaan markaan ka sheekaynay gabadhii la soo wacday oo tiri albaabadii baa laygala baxay intaan cashuurtii bixin waayay baa albaabadii laygala baxo gurigaygii waxaan soo gelayaa maalin walba ay ari ku jiraan hadday albaab kale soo gadato haddana $dhowr oo lagu yeeshay baa albaabka loogala baxaya markaan soo arrintaas sheegay baa waxaa la ii soo diray intaas oo message oo ah anay igu dhacday anay igu dhacday anay igu dhacday anay igu dhacday oo reer Puntland kulli markaan sii fiiriyo aan baaro IP addresskooda iyo waxooda aan fiiriyo Puntland baa la iga soo diraya telefoonadu kulli waa telefoonadii Puntland oo golis iyo nambarada ii soo diray oo dhan ma arkaysaa yacni nin baa wuxuu igu yiri waxaan aaday Puntland ninkaas codkiisa waa duuban yahay waana reer Puntland waa reerka waliba hoosoo beesha dhaxaaho meesha haysata nin kamida ma u jeedaa wuxuu yiri anoo aad u taageersan baan meesha tegey waxaan la soo kulmay biir waxyaabo badan buug baan ku soo qortay mushkilo tiro badan iyo corruption iyo hoog iyo baan soo arkay videogaagii baan shalay dhageystay kii maanta ma kii shalay wuxuu yiri videogu waa dhamaystay waa ku ceshaday waligay video ma dhamaysan buu yiri kuma ceshan mar labaad baan ku ceshaday waa shakiyay buu yiri waxa iri buu yiri war ninkaanu ma buugaygii buu akhristay buug baan ku soo qortay buu yiri waxa la wixii jiray reer Puntland dhalinyaradoodii iyo reer Somaliland dhalinyaradoodii kulligood intay qaxeen bay xamar joogaan xamar bay ka shaqeystaan hoteeladay ka shaqeeyaan bajaajkay wadaan dawladda qaar u shaqeeya in badan oo kamidii ma garanaysaa ganacsiyadoodii waa la carareen madax baa joogta buu yiri iyo nabadoono qaxay baa xagga jooga oo laba nin ka sheegay nin waaba ku ogaa nin kale oo aanan ogeyn buu sheegay soo ma arkays waa la qaxay buu maxaa yeelay waxaan arkay buu yiri xataa niman reer Puntland oo kabaryeeriyaalka ah xamar markaan iswaraysanayna waxay yiraahdeen buu yiri xagaasna waa ku baktinay halkaana waxaan ka baqnay intaan xireyno inaan baktino marka kabaryeeri iyo waxaan aragnaa ku shaqaysanayna kabaryeerigu ceeb ma bahaba waay ay ceeb u tahay oo iyagu ay ula yaaban yihiin waa la yaabay aniga laftigaygu laakiin kabaryeerigu waa shaqo fiican waxaa dhacday oo kamid ah hadalkiisii يعني wuxuu yiri canshuurta laga qaado dadka hadda koor baan idin sheegay fiiri qofka wixii soo dhan waa private sababta canshuur u bixinaya ii sheegi kara wax alla wixii uu rabo oo service social services kulli waa free waa lacag isagu u leeyahay school haduu ilmo u dirsanayo waa lacag isaga iska bixinaya waa private isbitaal haduu aado waa private haduu daawo gadanayo waa private biis waa private isaga gadanaya korontada isaga gadanaya wax alla wuxuu cuno isaga gadanaya dharkiisa isaga gadanaya gurigiisa isaga gadanaya canshuurna waa laga rabaa gurigiisa canshuur baa laga rabaa noloshiisa canshuur baa laga rabaa hadduu wax yar meel ka shaqeysto canshuur baa laga rabaa hadduu bixin waayo albaabka lagala baxaya canshuurtaasi say u socotay ku dhacaysaa jeeb nin leeyahay wuxuu ii sheegay dhaqan xumada meesha ka jirta waxaa ka mid ah wasiiradu dadka wasaaradda ka shaqeeya including DG-ga ama director generalku iyagu u shaqeeyo shaqaalow nin baa waxa wuxuu igu yiri wasiira baano la jooga buu yiri buu DG-gii buu wuxuu u dirsanayaa buu shaqooyinkiisa asaga u gaarka ah markaas waxaan ku yiri ninkan waa nin kula siman oo kula mid ah waa ninkii ugu sareeyay hay'adan marka adiga wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka laga reebay maxaad ugu shaqaysanaysaa ma ixtiraamti wuxuu yiri hadduusan shaqada rabin isaga yaqaan meeshuu shaqo ka helayo anaa keensaday wasaaraddu waa aniga anay ugu bilaabataa iguna dhamaataa dhaqan xumada noocaas ka jirta dadkii marka ku hoos noolaa dawladdoodii waxba kuma qabaan nabaddu waa taqaaniino waa nabaddu ummadan reer Puntland nabadda iyaga iska leh nabaddu waligood gacantoodii ku wataan cidna dhib kuma hayaan cidna lama diraan buuqna ma kiciyaan mana dagaalamaan nabaddu marka ma aha wax loo keenay oo lagu faani karo maaha nabadda la rabay in lagu faano maanta waa tan in mission loo dhigo dadkii jeelka ku jiray oo khatar la geliyo noloshoodii oo dhan waxna la laayo oo ay dhintaan wixii kalena ma garanaysaa ciddii dambiile ahayd ciddii dil u xirnayd ninkii dil u xirnaa iyagu raacaya wuxuu ka baqaya kolle waa la dilaya dagaalkan galaya al-shabaab buu noqday waa la recruit garay ninkii xabsi dheer ku xukunaa waa raacaya ninkii baxsan karoo dusi karaa waa dusaya laakiin mishinkaasi inuu dhaco waxay ka imaanaysaa khalal ka jira kalsooni darro dhaqaale darro fakhri iyo gaajo dadkii haya dadkii beerkay dhulka ku haya marka dawladdii haddaanan anigu waxba ku qabin
waay canshuurta loo qaadaya oo loo bixinaya waxaa hadalkiisa ka mid ahaa waa idiin daari doona magaalada Garowe meeyar fiican baa jooga lacag badan buu ururiyaa anigu shalay waataan idiin sheegay lacag aad u badan buu geeyaa lacagtaas wax ka miduhu yani shaqo fiican buu ka qabtay oo magaalada uu ugu nadiifiyaa buu yiri waana qurxiyaa niman baa u yimi buu yiri tiimka deni ka mida oo reer Garowe contractiyaana siinaysaa baa dabcan waa aranjaan iska garanaya contractiyaa noo saxiixaysaa wuu yiri contractiyadu waxay maraan process waa loo tartamaa fair cadaalad halkaasaa loo maraa marka soo apply gareeya applicationkiina soo xiray waa soconaysaa baa lagu yiri waa soconaysaa waa baxaysaa wuxuu sheegayaa marka wuxuu yiri reer Garowe waa isxilqaameen oo waa dagaalameen oo arrintaa waa diideen hadeerna wuxuu ku taagan yahay yiri Fariya Suul Axmed Barre waa tagaya laakiin uu Axmed Barre inuu tagaan rabaa oo muxuu tagayaa ma inaan nacay Axmed Barre may nimanka uu lacagta u ururinayaan ku nacay dadka waa inuu ka daayaa lacagta uu ka qaadayo dadku waa inay lacagta diidaan inay bixiyaan why would you pay somebody shaqa isagu uu leeyahay iyo jeebkiisa iyo lacag akoomadiisa ku dhacaysa waa u bixinaysa ha u bixinaysa yaa ii sheegi kara wax loo magaaladoo dhan hadday diido inay cashuurta bixiso dee magaaladoo dhan albaabada kala ma bixi karaan iyagaa daalaya hadday dabcan magaaladoo dhan albaabada kala baxaan yacni marka dadku waxaa la yiraahdaa annagu meelahan joogno waxaa la sameeyaa public revolt waxa la yiraahdo dadka shacabka ah waa diidaan nidaamka maalin bay dukaamadooda dhan xirtaan kulligood waxaa la yiraahdaa yaan la soo bixin dukaan la furin makhaayad la furin meelna yaan la furin bal cidii canshuur laga qaada la ogaado albaabku kala baxaya qofkii albaabku wuxuu ku gata male $3 $4 $5 qof bixin waaya baa albaab laga fuqsanaya xagee buu ka keenaa lacag uu albaabku gato marka isagiiba khatar la gelinaya securitygiisii alaabtiisii tuugada dhacaysa yani riski intaa la eg baa la gelinaya noo ixtiraam marka laga soo qaadana rag baa qaybsanaya oo businessya ku furanaya ganacsi rag baa ku qayila oo baashaalaya oo waxay ku labistaan macawiso $1,200 nin baa wuxuu igu yiri wuxuu yiri nin kamid ah raggan soo noqday waxaan arkay buu yiri meel dukaanaan tagay buu yiri oo dhar lagu gado marka macawis baa waxa ku qornayd buu 300 baa ku qornayd markaasaan waxaa yiri war waa kaa khaldantay 30 baa ka wadayay 30 ka dhig suu maya waa 300 samaar $300 yaa kala baxaya macawis markaas yiri kuwa $1,200 ii soo socda siciidan iyo maada arag yiri kuway qabaan ha iyo wasiirada madaxda xasan shiray kun bay kala baxaan $1,200 kuwa baa soo socdo already waa la gadanaya saasaa loo kala dafaya iyagu marka ay qabaan oo dhan $1,000 iyo $1,500 iyo $1,200 bay kala baxaan dadkiina fakhri buu gaajo ugu dhimanaya wadanka askarigii baa gadanaya jeelkii khatar gelinaya waa mission arrintaani mission way waana ceebta meesha ka dhacday yani waa la isweeraraayo waa la kala adkaadaa I don't mind that but I mind 3 tignika iyo 50 askari baa loo diri jiray jeelka 2 habeen oo isku xiga looma dirin habeenkii hore way tijaabiyeen way iska hubiyeen habeenkii labaadna waa u dhaceen waa ka danaysteen intay ka gurteen waxoodii bay la baxeen magaaladana waa ka baxeen buurahoodii bay ku noqdeen ciddii ka daba tagaysoo la dirireysana buurtay ku sugayaan awalba waa joogeen awalba buurta waa joogeen ciidana uguma tegi jirin yani waxyaabaha la yaab kale ka mid tahay ciidan badan baa haysanaa aaway ciidankii badnaa ma jeelkii baa loo waayay wax waardiyeeya weliba inta al-shabaab lagu xirtay dad al-shabaab inta lagu xirtay baa waxaa loo waayay cid ilaalisa lalaaya lama laha cid ilaalisa ciidankaan rabin inay ilaaliyaan because waxba kuma qabaan dadkana in la xirxiraa marka waa gardaro dadkana in la xirxiro khatar la geliyo nimankaasi waxay sameeyeen xataa maxaabiista inay ka mid tahay laga yaabaa 2 qof oo kale oo meydka hal qof kama dhiman ninkii live-ka soo galay oo askarta u hadlayay wuxuu yiri kuwa maxaabiis aanu ka haynaayo waa la baarayaa inay askartii iyaga yihiin iyo inay shacabki yihiin wax badanna waa ka leeyna hal qofna kama bixin arrintaasna waa la soo afjaray inta laga danaystay baa albaabka looga baxay inta laga danaystay oo laga dhamaystay baa laga baxay subxaanallah yani beentaas miyaa haddana ku daraysaa intaad dadkii oo dhan baa dhibaato u geysatay baad haddana been ugu daraysaa iyo been u sheegaysaa soo ku maqli mayaan oo meesha ma joogaan why beenta intaa la eg loo sheegaya maxaa life ku soo taagay ma iska aamusta waxba maadan ba sheegin dadku warkii waa hayaan banaanku maraya kuwii gudaha joogay saldhiga joogay yaanu la hadalnay mataqaan kuwii gudaha ku jiraanu la hadalnay
saldhigaanu la hadalnay oo noo soo warramay meesha maydka lasoo dhigdhigaya 9 qof kuwa joogaanu la hadalnay marka maxaa beenta kugu wata maxaa been u sheegaysaa dadku iyagaa warramaya oo warka bixinaya cidina qarin mayso waxa meesha ka dhacay wax la qarin karana maaha ma arkaysaa waxaan la yaabnay baa meesha ka jira askartiiba intay gaajo iyo fakri u baktiday bay gadanayaan dadkoodii gadanayaan iyo dalkoodii 3 gaari oo tignika ah oo loo diri jiray iyo 50 qof oo waardiye ah oo tagi jiray oo habeenkii ilaalin jiray sababta loogu diri waayay yaa noo akhriyi kara cidda nooga warrami kartaa ayada waxaanu sheegno waxaanu hubno wey waa wacnaa taleefon baan u dirnay dadkii baan la hadalnay gudahaanu wacnay wax faa'iido aan ka helayno inaanu been sheegnaa ma jirto wax aanu ka helayno ma jirto haba yaraatee ma arkaysaa arrintaasi ceeb bay ahayd wax lagu suureeyo iyo wax lagu fasiro iyo waxaan ku sheegno midna ma jiraan ilaah bay iga tahay waxaan ku sheegno inaanan garanayn dad kale waa been leh dadka reer boosaasood oo dhan waa beenlow ha yiraahdeen ilaa 7 qof baanu waraysanay kulligood beenlowyaalba oo ay ku jiraan raggii dowladda u shaqaynayay iyo jeel stationka ragga ka shaqeeya ay ku jiraan kulligood ma beenlowyaalba kulli ma been bay noo sheegayaan adaa run sheegaya marka that's disgusting waxaan habeen barkaas aan u soo galay Facebook waxa weeye qaracan iyo ciil haya qaracan iyo ciil baa haya meesha in saa loogu kala adkaado maahayn saa in naloo ka adkaado sax maahayn ma arkaysaa reer Puntland raggiina hadda ku jira oo jooga boosaaso jooga hadday warkaygaas uusan run ahayn sheega soo qora 7 qof oo reer boosaasoda been ma wada sheegi karaan ayna waa la xirayaa ciddii soo qortay kolley waxay ii soo gelinayaan private-ka igu soo diraya laakiin that's what happened that's the fact runtaanu idiin sheegaynaa dadkan maamulkan meeshaan qabsaday ma hayn karaan gacantooday ku burburaysaa wallaahi haddii aan laga qaban ilaahay baa iga og gacantooday ku burburaysaa soo ma arkaysa yani waxaan ka hadlaynaa the facts weye ciddii shaki qabtaa boosaasa waca dadka waraysta garowaan wacay oo boosaasaan wacay oo intaasoo qof baan wacay kulligood waxay ii wada sheegeen war isku mida yani waa musiibo wax laga naxo weeye wax lagu farxaya maaha laakiin waa musiibadaa dadkii geystay waa inay bixiyaan they have to pay the price I believe ciidamada dadka madaxda ka aha oo la rabay inay ciidanka waardiyaha u diraan magaalada ciidankaas nimankii xukumay oo ciidanka diri waayey nimankaasi dulmiilayaal weeye nimankaasi dadka iyo dalkaba dhib bay u geysteen nimankaasi inay shaqada waayaan maaha waa inay la kulmaan dhib waa inay la kulmaan oo xabsiyo waa inay aadaan ayagu waa inay noqdaan positionkoodii waa inay galaan dadka ay sii daayeen midda labaad maxaa u haysanaysaan al-shabaab waayaa u haysanaysaan al-shabaab haddiise al-shabaab la haynayo maxay tahay caqliyadda iyo istaraatiijiyadda ku jirta meeshay joogeen oo buuraha ahaa baanu ku xiraynaa maxaa garowa loo geyn waayo waay maxaabiistii al-shabaab loo keenaya boosaaso bannaankeeda meel ah what is that away managementigii iyo maskaxdii shaqaynaysa aw maskaxdii caafimaadka qabtay aw where is it this is absolutely absurd waxaan ku fasira ma garanayo dalkii gacantooda ku baaba'ay waxay qaadan kareen iyagaa qaatay dadkii waxba uma ogola inay cunaan dadkii fakri iyo gaaja laysay ama askari ha aado ama shaqaale ha aado 3 bilood askari aan lacag qaadan caruur iyo naagna leh diin akhlaaqna aan aqoon diinna lahayn qaadiya cuna hadduu raba alcohol caba wiilka warkiisa waxaa ku jira aan halkan ku hayo waa nin weyn oo odaya waxaa ku jira hadalkiisa waa nin reer Puntland waliba reerka familiga hoose ah oo ku dhow reer dadka dawladda haysta ma arkaysaa markaan codkiisa sii daayay qaar baa garan doona waana sii daynaya waa ogolaad inaan sii daayo waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay alcohol la soo qabtaa saraakiisha cabtuu yiri alcohol la soo qabto this is absurd dalku faruhu ka baxaya dadku inay daawadaan maaha waxaan lama daawan karo siciidani laguma daawan karo meesha I believe inuu ninkaasi shidaysan yahay nin soo shaqo tagay weeye nin maamul qaban kara maaha asal ahaanna weligiis nin maamul qaban karay maaha nin la yaqaano la og yahay dadkay 30 sano is yaqaaneen
markii la yiri meesha loo dhiibaya qaraacan bay u baqtiyeen anigu ma aqoona waa ku farxay oo waxa nin wadaada meesha qabsaday oo shaxshaha oo ama garanaysa dhalinyaro ah oo ma garanaysa dalkii ka soo bixino waxyaabo badan oo waxa iga muuqanaya fiican oo shaxshaha oo isku aadaadan waxba kama jira ilaahay baa igu naxdin baan u baqtiyay marka insha allahu tacaala kolley waa laga soo kabanaya ilaahay subxaana wa tacaala sida waynoo dhaamaya laakiin waxaa laynaka doonayaa xisaabtan baa laynaka doonaya lacagtan la iska guranaya xisaabtan bay u baahantay saddexdii hay-adood oo dowladdu lahayd oo ninkaan la xisaabtami lahayd labadii hay-adood oo kale oo la xisaabtami lahayd jeebkaasay ugu jiraan maxkamadda gacantaasi ku sitaa wiil yara saan haydin siinaya wiil yara oo wariye ah baa wuxuu duubay sawirkii siciidani oo tabeella meel ku dheganaa oo la jejebiyey buu duubay oo baahiyey waa la soo qabtay xabsigaa la dhigay December baa la xiray 28 waa la xiray maxkamad baa dorar la soo saaray maxkamadda la soo saaray maxay tahay waa wariye wiilkaas maxkamad askari baa la soo saaray ciidan ma ciidan baa wiilku maxaa ka galay askari maxkamad askari maxaa ka galay maxkamad baa la saaray askari waxa la yiraahdee case kaasaad gashay wuxuu yiri war anigu tabeelaha marka la burburinayo waa duubaya anaa duubaya saasaan u duubaya anigu marka ma jin baan ahay shaydaan miyaan ahay see baan u jejebiyey anigu tabeelaha anaaba duubayo kaamaradan haystaa dadkaas aa u jeedaan baa jejebinaya aniga ma maya adigu yaa ku yiri duub waxaa la yiri markii la dooday waxaa la yiri waxba laguguma helin dembigii waa lagugu waayay bal idinku si fiican u dhegaysta hadalka maxkamaddu inay jeebkiisa ku jirtaan idin sheegaya oo qofku naco la xirayo waxay yiraahdeen dembigii lagugu soo eedeeyey waa lagugu waayay haye 3 bilood baan haddana kugu xukunnay oo maxay tahay 3 bilood waxay diidayaan inay yiraahdaan magdhow baan ku siinaynaa niyow raalli ahaw waxa lagu geystay khalad bay ahaayeen in daalac la isu raacdo ceebe ka timaado waa ku xukunnay ceebtii ugu weyneed baa ka dhacday bal nin la leeyahay dembi ma lihid oo dembigii waa kugu weynay haddana waa ku xiraynaayo 3 bilood baan kugu xukunnay 3 bilood bay marka ciyaarsiinayaan waxay yiraahdaan maalintii lagu xiray baan ka soo bilownay maalintii lagu xiray ayaanu ka soo bilaabaynaa 2 beri baa ku haray liq 2 beri oo kale bal idinku maxkamadda noocaasa oo siciid tabeelihiisa haddii la jejebiyo ma dembi baa siciid tabeelihiisa waa inaan isagoo taagan jejebin karaa isagoo taagan waa inaan anigu jejebin karaa oo aan cidina daalac ii raacanin waxa ugu fog oo laygu qaadi karaa waa haddii ay noqoto ma garanaysaa qiimo yeelato value yeelato in laygu xukumo waxa la yidhaha vandalism oo la yidhaha bixi qiimihiisi bixi laakiin xaashidii aan jeexjeexay iyo tabeelihii aan jarjaray baan 3 bilood oo xabsiga u liqayaa xaggee bay ku taallaa yacni waxaa la diidan yahay dani dadkiisii baa nacay oo tabeelihii uu ku sawirnaa jarjaraya baa laga wadaa maxkamaddu marka waa dadkaas aad u jeedaan wuxuu yiri waxna kuguma hayo dembi kuguma hayo maadaama aan dambi kugu hayn 3 bilood baa liqaysaa because dani baan raalli ahayn haddaan ku sii daayo maxkamaddu marka jeebkaas ay ugu jirtaa maxaa ku xiga baarlamaankii ninkan baarlamaankii la rabay inuu isaga ku istaajiyo dab oo kululeeyo 8 nin oo kamid ah hadlay albaabku subax ka saaray waxa ka horreeyay guddoomiyihii dhammaayoo la doortay xabad buu kala daalay 6 buu dilay qof buu maalintii ku dilay meeshii maalintaasuu qabasho lahaa maalintuu karkarayay oo inta su'aasha la weydiiyey uu mikrofoonkii la tegey maalintaasuu qabasho lahaa ma arkaysa haddaa saa addoon u tihiin hadda dad badan baa idiin soo wada shaqo tegaya walle rag badan oo waalan oo buufis qabaa walle idiin soo shaqo tegaya waxaan ogahay oo kale kuwa ku hareeraysan iyo kuwa odayaasha oo siyaasiyiinta ah kulli $1,000 macawisaa bay qabaan milyan baa ugu jira nimaanan anigu filaynba inuu tuug yahay baa waxaa laygu yiri $1 million baa ugu jira mar baan sheegi doonaa $1 million baa business ugu jira meelo kalena wax kale ugu jira intaasoo guryeerna waa ka dhistay garowga subxaan allah haddaa saa marka idinku u jilicsan tihiin oo aad addoon tihiin qaabiliye u leh in laydin addoonsado oo laydinku tunto haddii cidna ha eedaynina falaa taluumuu anfusakum falaa taluumuu waluumuu anfusakum falaa taluumuunii waluumuu anfusakum shaydaanka aakhire marka la tago wuxuu ku leeyahay dadka war anigu waxbaan idiin sheegay maanaa idin khasbay waxaa laydin dhihi doonaa falaa taluumuunii waluumuu anfusakum idinku is eedeeya idinku is ciilkaambiya annaga hana eedaynina that's what it is
maxaa lagaaga danaysanaya saa lagugu tumanaya waay meeyaradu gaalkacyo lacag bay soo diraysaa buurtinla waxaa laga soo dirayaa 120,000 a month boosaaso waa almost a million 700 500 800 kun oo canshuura garowe intoo kale waay gaalkacyo magaraysa qardh waay waxaan maqlay qardho waa u diideen oo waxbay ku haystaa ku qabsadeen waa ku qabsadeen oo qaar bay u diideen yacni waxa noocaasa waay lacag ilaa dhowr milyan oo dollara a month loo ururinaya oo nin u qaadanaya dadkiina aan mushaar xataa la siinay waay oo haddana loo aamusan yahay odayaashii waxaa la yidhi wixiina qaata and be quiet silent aamus anigu maba ogeyn inay saa dulmiga u qaadan yaqaaniin oo u qaadan karaan oo gobonnimo doon aysan lahayn oo aysan damiir iyo dadnimo aysan ku jirin anigu maba ogeynba waxaan u qabay nimanka inaan lagu dhicin laakiin wallahi ma garanaysaa yani waa lagu ceeboobay meesha ceeb baa ka dhacday waxa caawa dhacayna waxay kashiftay waxa qarsoon oo tirada badan dadkii mushahar markay waayaan war naftooday gadanayaan dadkan waxa sababta ugu badan oo wax loo qaraxyada iyo loogu adeegsado waa inay fakhriyaan oo gaajoodaan qofku hadduu gaajoodo oo caruur leeyahay oo xaas leeyahay oo xaafadda lagaga qayliyo uusan diin uu ku xishoodo garanayn oo dadkii oo dhan oo wax wada boobaya arkayo dadkii ka sarreeyay oo dhan wada tuuga arkayo wuxuu u farabaxsanayaa this is what I see wuxuu u farabaxsanayaa dad badan oo idinka midana lagu qancinaya farmaajo war farmaajo inta la joogtaa waa qoyan yihiin kuwiini baa u cararay inta la joogtaa waa qoyan yihiin oo lacagtoodii iyagu ku celiya wixii laga qaado canshuura dalkay gashaa ma guryaha loo dhisaa lacag iskuulka laga bixiyaa free isbitaalladu waa free maxaa ka hadlaysaan maxaa haysataan idinku koronto ma haysataan biyo ma haysataan isbitaal ma haysataan iskuul ma haysataan maxaa social service oo haysataan what do you have why would you pay taxi marka anigu maxaan taxi kuu siinayaa haddii aanan waxba ku helin waddankan anigu aan joogo intaan aniga jeega laysiin baa taxiga layga jirtaa oo taxiga dowladda lahor bixiya lahor siiyaa lacagta intaan aniga jeegu isoo gaarin iyagaa already qaatay waxoodii saasoo ay tahay markaan xanuunsado isbitaalkaan aadaya waxaan helayaa yacni intaas oo service oo free aan helaya waxbarashadii waa free ciyaalkayga iskuulka ii dhiganaya ma garanaysaa intaas oo shay oo shaxshaha baan ka helaya dowladnimadii dambe laami aan maraan helaya barafkaa layga xaaqaya cawskaa la jaraya wadda aan ku maro shaxshaha baan helaya why maxaan kuu siinaya adiga lacagta sababtaan kuu siinaya maxay tahay kuwa xamar joogaa waa qanacsan yihiin huteeladii wuxuu leeyahay ninkaasi huteeladii $60 baa ugu yar muqdisho 60 baan bixinaya bir habeenkii bil baana jooga mana arkaysid boos buu yiri bannaan saasaa businessku isu dhex yaacaya lacagtu saasay u kala guraysaa 25 bisha askarta lacagtu waa ugu soo dhacdaa taleefonka ugu soo dhacdaa maxaa yeelay digital wey suul baa laga qaaday nin walba taleefonkiisa loo register gareeyay lacagtu toos bay usoo dhacaysaa waxa magaray shacabka kale shaqaalaha rayidka 28 ka waa qaadanaya hal bil kama maqna 4 sana u dhamaatay bishii sanadkii shanaad baa lagu dhex jiraa 2 sano uu joogaa sanadkii saddexaadna already wuxuu bilaabay inuu lacagtii shaqaalaha u diido iyo askarta ay soo qorayaan ma haysana lacag ma lama siin 3 bilood lacag halay buu ii soo qoray wiil wuxuu yiri adeer wallahi wuxuu iigu daray iska daayo waxaan ka sugay inuu lacag iigu daro wuxuu iigu daro iska daayo 2 bilood baa iga maqan mid kale ii soo geliyay wuxuu yiri 3 bilood baa naga maqan way loo siinaya canshuurta magaalooyinku way canshuurtooda intay soo qaadaan garowa loo keenaya loogu shubaya magaalooyinka lacagta laga ururiyo canshuurta ahi waa inay iyaga gashaa magaalada waa inay ku noqotaa dariiqyada waa in lagu hagaajiyaa derbiyada waa in lagu dhisaa meelaha magaalada dadka masaakiinta wax laga siiyaa isbitaallada waa in la maalgeliyaa waa inay free noqdaan iskuulladu waa inay free noqdaan macallimiinta waa inay lacagta siiyaan markaa kadib buu qofku lacagta bixin karaa ay isaga ku soo noqoto oo uu arkayo inay lacagta isaga ku soo noqonayso laakiin waa la rarayaa garow waa loogu geynayaa gurigooday dhiganayaan xawilaaday ku dirayaan cumaan baa laga qaadayaa qaar nairobi baa laga qaadayaa qaar waxaa laga qaadaya dubay and you still pay weli waa bixinaysaan iyadoo saasaa weli sii bixinaysaan wixii caawa dhacay baa dhacaya haddii aan saa laga dayn walla wixii caawa dhacay baa dhacaya ceebtii dhacday xalay markay idiin ahayd 11 ilaa 1 in la haysto jeelkii oo inta laga danaysto 1 laga baxo oo iyagu ay 3 xabad la dhacaan meeshii cidlaa qaw waxaan ka yaabay rasaastan daawad rasaastu hal dhinac bay u dhacaysaa dhinaca kale wax kama soo socdaan
waa horay ka tageen meeshii rasaas imama muuqataba dhinaca kale ka soo dhacaysa dhashiikayaal baa waxa lagu fororiyey dhinacii jeelka hurrud idinku daawada meel walbay ku jirtaa rasaastu hal dhinac bay u socotaa wixii soo noqonaya aaw haddii dagaal jiro oo dagaal meesha ka socdo ee dagaalka labada dhinac baa rasaastu u kala socotaayo wax isdhaafaad arki lahay male ilaahay baa idiin maqan annagu idiin ducaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala dulmiga ha idinka dulqaado wax kaloo aanu idiin qaban karnaa hadda ma jirto wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu